السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaanu bilaabeynaa waxay tahay xalqadeennii sagaalaad ee aan uga soo hadlaynay taariikhdii dowladda Cuthmaaniyiinta. taariikhdaasoo aan maalinba uga hadlaynay boqortooyadii kala duwaneyd ee soo kala hogaamisay dowladda Cuthmaaniyiinta, boqor walba iyo inta sano uu xukumay dowladda Cuthmaaniyiinta iyo inta maaragtay marxalad uu la soo maray. marka maanta waxaynu ku hadlaynaa waxay tahay waa boqorkii sagaalaad ee dowladda Cuthmaaniyiinta, boqorkaasoo la oran jiray Muraadkii labaad. marka Muraadkii labaad magaciisa oo dhammaystiran yani waxa weeye Bayazidkii labaad aan leeyahay, waxa weeye boqorkii sagaalaad ee la oran jiray Bayazidkii labaad. marka Bayazid waxa weeye ii sheeg wuxuu dhashay 1481 wuxuu dhintay 1512. marka Bayazidka labaad waxa weeye sida taariikhda ku xisanba ama la wada ogyahay inuu yahay boqorkii sagaalaad ee dowladda Cuthmaaniyiinta, magaciisa oo dhammaystiran la yiraahdo Bayazid bin Mohammed. magaciisa marka ay dadku ku dhawaaqaan waagaas uu caan ku ahay oo ay bulshadu u taqaaniin wuxuu ahay Sultan Bayazid al-Wali, oo ahay nin maaragtay ii sheeg aada u dadaal badan u karti badan dowladda Cuthmaaniyiintana la mari doono marxalado kala duwan iyo dagaallo kala duwan iyo siyaabo kala duwan. marka Bayazid bin Mohammed waa Bayazidka labaad, sida hadda xalqooyinka hore kusoo aragteenna aan hore usoo sheegnayna dowladda Cuthmaaniyiinta dhaxaltooyada iyo boqorada kala dhaxlayba boqor walbaba markii magaca awoogiis kaga horreeyay asiga loogu magac daro isaga wuxuu noqonayaa kii labaad. tusaale ahaan oo kale Maxamedkii labaad, Maxamedkii koowaad, Cusmaankii koowaad, Cusmaankii labaad, Cumarkii koowaad, Cumarkii labaad, Suleymaanki saasuu ku socotay. marka maanta waxaa ka hadlaynaa waxay tahay Bayazidkii labaad taariikh nololeedkiisii. Bayazid ama Bayazid الثاني waxa weeye wuxuu dhashay 3 December 1447 ayuu ku dhashay dalkan Greega, degmo ka tirsan oo la yiraahdo Dematoka. marka Bayazidka labaad waxa weeye waa nin maaragtay ii sheeg hadduu Ilaahay ku run yahay aad u dadaalay dowladda Cuthmaaniyiinta markii uu ka dhaxlay aabihiisii waxa weeye Maxamed al-Faatix saldanada. sidaan shalay soo sheegnay oo hadlayna xalqadii 8aad Maxamed al-Faatix inuu dhintay raximahullah uu maaragtay ii sheeg 1481. marka wuxuu ku dhashay ninka la yiraahdo Bayazidka labaad ee ah wiilkii kala wareegi doona dhaxaltooyada ama boqortooyada dowladda Cuthmaaniyiinta Maxamed al-Faatix. wiilkaasoo la yiraahdo Bayazidka labaad dhashay 3 December 1447 Dematoka dalka Greega ku dhashay. marka Bayazidka labaad sidaan hore usoo sheegnayba waxa weeye yaraantiisiina waa nin aada u dadaal badan oo u juhdi badan oo maaragtay dhanka diinka iyo dhanka maaragtay culturalka markii la fiiriyo ama dhaqankana iska hormariyay. dabcan aabiis ayuu ka dhaxlay dadaalkaasi. marka waxa weeye Bayazidka labaad waxaa asiga intuu yaraantiisii ilaa iyo maaragtay ka suqan gaaro oo 20 jir kasoo gaaraba uu ku noolaay dhankan magaalada la yiraahdo ama gobolka la yiraahdo Amasya. magaaladaas marka caan ku ah inay baxnaaniso ama ay maaragtay wax barto ay ku noolaadaan dhaxal sugayaashii hogaamin lahaa dowladda Cuthmaaniyiinta. marka magaaladaas inta badan waxaa la sheegaa inay tahay magaalo dhaxaltooyo inay maaragtay ama princess ay ku cantaan. horta codkiisa si fiican loo maqla soo ma. marka gobolkaas Amasya marka waa gobol noocaas oo soo saaray boqorro badan, soo saaray maxaan ku raad dad badan oo hogaamin lahaa dowladda Cuthmaaniyiinta. marka Bayazidka labaad dabcan isaga marka wuxuu la wareegay xukun iyo dowlad diyaarsan oo caalamka laga dambeeyo laga baqo, maadaama aabihiisii Maxamed al-Faatix al-Sultan Maxamed al-Faatix furashadiisii Istanbul kadib ilaa iyo duulaan uu ku qaaday dalkan Yurub inteeda badan kadibna uu usii gudbay yani dalka Talyaaniga dhankan iyo Rome. marka Bayazid waxa suugaysa waxay ahayd cadow badan oo aabihiis uu ka soo horjeeday. aabihiis maaragtay cadow ku ahaa ee siyaasad isku dagaaleen, ficil ahaan ay isku dagaaleen
kuwaasoo markaas isugu jira muslim iyo gaalba. marka Bayazidka labaad dabcan markuu xukunka uu la wareegay oo aabihiis ama maaragtay amiirkaas ay ka horreeyay Maxamed al-Faatix oo kala wareegay, waxa weeye ninka la yiraahdo Bayazidka labaad xukunka waxaa ku qabsaday ama ay xoogaa ka dhex jirtay isaga iyo walaalkiisa ninkii la oran jiray James Sultan. marka dabcan Cuthmaaniyiinta markii amiirada dhaxalka ay kala sugayaanba ama aabbahu markuu boos ka baxo ninkii hogaamin lahaa, mararka qaar waxay ahayd munaaqasho inay soo kala dhex gashay anaa hogaaminay anaa soo hogaaminay. dabcan amiirada marka ee dhaxalka sugaya waxaa jirtay laba qayb oo kala taageerayo. qaybna waxay leeyihiin annaga waxaan ku qanacsanahay amiirka la yiraahdo Bayazidka labaad, waxa weeye ii sheeg. dadka qaarna waxay leeyihiin annaga waxaan rabnaa James Sultan. marka waxa weeye codkiga problem ku jira haddii maaragtay insha Allah tacaala wanaagsan yahay ama ay wax ka qaldan yihiin soo qor insha Allah waa saxina. marka Bayazidka labaad markii xukunka lagu wareejin rabay ama la yiraahdo maamulka ku sugay, dabcan isaga gobol ku maqnay. markii aabihiis uu dhintay waa uu yimaaday. dabcan markii aabihiis uu dhintay dadkii waagaasi marjaca Cuthmaaniyiinta la joogay waxaa la sameeyay marka awlaadii suldaanku uu dhalay kala maqnaa in farriin loo diro, maktuubyo loo diro la yiraahdo aabihi waa dhintay imaada oo xilka Cuthmaaniyiinta la wareega ama maaragtay qaabkii qofka hogaamin lahaa si loo doorto lagu wareejiyo xilka. marka Bayazidka wuxuu ku maqnay waxa weeye isha gobol buu ku maqnay. ninka la yiraahdo walaalkiis kale asigana maaragtay ka yar ee la oran jiray muxuu ahaa isha James Sultan isagana gobol kale ku maqnay. marka farriintii loo kala diray, farriintii markii la diray loogu sheegay in booskii aabahood u dhintay booskiina uu baneeyay oo ay u baahan tahay inay la wareegaan xukunka dowladda Cuthmaaniyiinta. waagaas hadda ma jirin wax telefoon ah ama internet ama connection waxaa jirta. waxay ahayd in la yiraahdo qofka hogaamin doona dowladda Cuthmaaniyiinta meeshuu ku maqan yahay in loo diro qof risaalo qaada. risaaladaasoo ii sheeg u geynaysa qofka markaas dhaxalka qaban lahay dowladda Cuthmaaniyiinta. marka Bayazid farriintii aabihiis loogu sheegi lahaa geeridiisa waa ay gaartay. waxaa weeye isla markii hore ku sabab marka waagaas waxay ahayd qofka hadduu gobol ku maqan yahay ilaa caasimadda ka yimaado meelaha qaar waxay kala gaari jirtay in 9 maalmood ilaa fardun baa shaqeynaya. waagaas baabuurna ma shaqeynaya, tareenna ma uusan jirin taariikhda sida ku xusan. marka maalmihii qaadanaysa qofku inuu yimaado. marka ninka la yiraahdo James Sultan oo la dhashay ama walaalka ka yar ahaa Bayazidka labaad, isaga farriintii markii loo diray kuwa qaar oo maaragtay amiirada ka mid ah ayaa dhaxda u gala farriintii oo maaragtay ka hortagay inay farriinta gaarto in aabihiis dhintay. waxaa laga baqay waxay inuu soo duuyo yiraahdo aabay xilkiisa aniga la wareegaya ama sawdanadana la wareegaya. marka waxa weeye Bayazidka labaad markii uu yimaaday magaalada Edirne ee u ahayd caasimadda dowladda Cuthmaaniyiinta, waxa weeye xilkii waa lagu wareejiyay, waa loo dhaariyay, janaazadii aabihiis waa tujiyay, waa la aasay, nidaamkii waxoogaa waa kala degay, howshii aabihiis saarka ka soo waday. marka adigoo shaqada ay bilaabatay hogaaminta dowladda Cuthmaaniyiinta waxaa akhbaartii ama farriintii maqla walaalkiis ka yaray ee la oran jiray James Sultan oo lagu yiri aabbaha waa geeriyooday, booskiina waxaa la wareegay oo Sultan Maxamed al-Faatix ninka la yiraahdo walaalka kaaweyn Bayazidka labaad ama Bayazid bin Maxamed. ninkii James Sultan isagana meeshuu ka yimaaday wuxuu yimaaday magaalada la yiraahdo Edirne oo markaasi walaalkiisa kula doodi doono dhihi doono dhaxaltooyada kaliya ma iskale maxaad aniga isu weysay ama aniga maaragtay ku fariisanaya. marka dabcan dowladda Cuthmaaniyiinta waxay leedahay marjac go'aamin kara hadba qofkii u arkay inay yiraahdaan dhaxalka ninkan inuu wadaan la habboon oo ayaga taladooda laga qaadan jiray laga fikir qaadan jiray. marka waxa weeye markii uu yimaaday ninka la yiraahdo James Sultan markii uu magaalada Edirne yimaaday walaalkiis buu la kulmay saam macquul ma hano aniga waxa boqortooyadan qayb aan ka leedahay qayb baa ka leedahay. sheekadii marka wuxuu ka dhigayba aniga qaybtiisii in dowladda Cuthmaaniyiinta ay laba inuu kala qabsan tacaamul ku sigatay. marka Bayazid wuxuu ku yiri meeshan hadii mugta wax oo xil hadii noqoto ama hogaamin ay noqoto qofka Ilaahay calaf ugu darbaa noqonay ma ahan qof xil doona ama asiga kursi inuu raadiyo rabo oo dad inuu xoog ku hogaamin rabo ma socon karto. marka Bayazidka labaad wuxuu ku yiri hadii meesha aniga marjac baa ii wakiishay dhaxalka ana kaaga weyn maadaama aan kaaga weynahay oo aan kaaga horeeyo wax badan aan xogogaal u ahay aniga ayaan sii joogay oo ay dadku ii idbaleen. inta badan dadka shacabka markaas dowladda Cuthmaaniyiinta hogaaminayna way taageersaneen in Bayazidka labaad uu hogaamiyo dowladda Cuthmaaniyiinta. marka waxa la oran karaa waxay tahay xilligan markii laga soo bilaabo 1481 ilaa 1512 inta u dhaxayso dowladda Cuthmaaniyiinta dabcan siyaasadda dibadda ama dagaalada dibadda xoogaa
sidii boqor maxamed ulfaatix ama dadka horreeyay ku hogaamin jireen ma aysan hayne waxaa markaas haraadiyey khilaaf ka dhex jira caa'ilada ama qoyska dowladda cuthmaaniyiinta markaasi ay ku dagaalamayeen dhaxalka ninka la yidhaha marka James Sultan isaga fariintii iyo digniintii la siiyey waa uu ka cararay oo yacni ma uusan dhegeysan walaalkiisi marka Bayezid bin Maxamed wuxuu kula dagaalamay maxay ahayd inuu xilka ama dhaxaltooyada boqortooyada dowladda cuthmaaniyiinta uu la qabsado yiraahdo maya anaa hogaaminay ma hogaaminaysa dabcan inta badan dadka waxay markaasi aada uga walwaleen uga murugoodeen in dowladda cuthmaaniyiinta ay noqon rabto dowlad laba u kalgooda oo qayb Anatolia noqoto qaybna maaragtay Europe ay noqoto marka dadkii waagas boqoashay culimadii waagas noolaa inta badan waxay digniin u direen ay dhahayeen ninkii la yiraahdo James Sultan inuu ka tanasulo dhaxalkan maadaama uu walaalkiis ka weyn kursigan hayo uu ku fadhiyo loogana weyn yahay loogana maaragtay khibrad badan yahay James Sultan marka iyo khilaafka ka kala dhex jira ninkii la yiraahdo Bayezidka labaad waxay farxad gelinaysay ama inta badan aad u jeclaysay oo aad ula dhacay nimankii la jiray Yurubta oo iyaga rab in isku hor keenaan boqorada hogaamin doona dowladda cuthmaaniyiinta sababtoo iyaga waxa ay muddo 30 sano dhibaato ku hayo oo gobollo badan ka qabsaday caasimad badan ka furtay amiirkii la oran jiray maxamed al-faatix rahimahullah marka iyaga marka nabarkaasi jugta soo gaartay inay kasoo kabsadaan awgeed waxay ku qasbanayeen inay dowladda cuthmaaniyiinta ay dhexdooda isku jabiyaan si ayaga markaasi ay u nastaan marka James Sultan asiga marka waxaa jiray kuwa kale oo asiga la jiray oo fikir ahaan u taabacsanay yiraahdeen annaga askarteena iyo waxaan inta sameysano aan gobol degno aan la dagaalano ninka la yiraahdo Bayezidka labaad haddii xilka isaga uu soo wareejin waayo annaga xog uga qaadanayna waa marka Bayezidka labaad isaga inta badan wuxuu ku dadaalay inuu walaalkiisa maslaxad ku dejiyo inuu maaragtay walaalkiisa uu la taliyo uu yiraahdo saan maahan xaalka deji annaga xilkan waa nabada dhaxeeya aniga haddaan ka baxo meesha adaa soo geliyo dadkan dhiig lagu hogaamiyo waxa lagu hogaamiyo waxay tahay waa nidaam iyo dastuur iyo sharci marka James inta badan wuxuu iska hay in uu dagaalamo oo uu rabay oo maba uusan tanaasuleen oo hal kuma uusan ahayn maslaxad kadib waxaa dhacday marka isaga iyo askar uu leeyahay waa gobol la yiraahdo Ankara u dhow ayuu maaragtay halkaas deegaan ka dhigtay uu kula dagaalamayo amiirada hoos imaanay dowladda cuthmaaniyiinta halkaas marka amiiradii uu ku laayay oo askartii uu asiga watay kaga guuleysay ciidankii ka soo jeeday ee taabacsanaa dowladda cuthmaaniyiinta garabka Bayezidka labaad kadib wuxuu soo guuray haddana in maaragtay uu ku soo wareego caasimad u horeysay dowladda cuthmaaniyiinta ee la yiraahdo magaalada Bursa halkaas ayuu duulaan ku soo qaaday isla meeshaasna uu qabsaday marka intaas marka Bayezidka labaad wuxuu isku ilaalinaa waxay tahay inuu daadiyo dhiig walaal uu ka tanaasulaya oo maslaxad u raadinaya uu la tashanaya dad uu u diray leeyahay hal la soo hadla ninkaas lacag wuxuu rabaa la siinaya ha istajiyo dadka dhiigoodii uusan daarin marka ninka la yiraahdo James Sultan isaga ma uusan dhageysanay bawaantaas in nabadaas maslaxadaas laga shaqeynaya wuxuu ku dadaalay waxay in xukunka afgembi ku qabsado kadib waxaa dhacday marka magaalada Bursa la wareegay Bursa hadda waa caasimadii u horeysay dowladda cuthmaaniyiinta markuu magaaladaas la wareegay wuxuu sameeyay inuu asiga lacag asiga sawirkiisa ku dhiganta ama lacag asiga u gooni ah oo saxiixiisa ku taala andhahe in ka shaqeyso magaaladaas in isaga dhaxaltooyo ama boqortooyo gooniya uu ka sameeyo meesha isaga hoos tagto halkaas marka waxaa ka bilowday waxay ahayd dowlad dhisan in laga hoos dhiso dowlad kale marka ninka la yiraahdo Bayezidka labaad isaga marnaba marka kuma uusan fikirin ama kuma uusan rabin inuu la dagaalamo ninka la yiraahdo James Sultan oo ah walaalkiisa kadib waxaa dhacday marka dowladda cuthmaaniyiinta waxaa qasab noqotay ama boqorka Bayezidka labaad waxaa qasab ku noqotay inuu soo saaro amar ah in walaalkiisa la qabto ayadoo la dilin kadibna xabsi la geliyo ama maaragtay si maslaxad inta loo keeno meesha caasimada waa ay tirne kadibna lagala xaatamo wixii markaas u tabanay laakiin mar walba marka James Sultan wuxuu isaga ku dadaalayay inuu xukunka afgembi kula wareego dabcan intaas marka uu dagaalka ku jiro oo juhdiyo ku jiro oo la dagaalamay walaalkiisa wuxuu taageero ka helaya mid dhaqaale iyo mid siyaasadba nimankan European waagaas ee boqortooyada ka dhisnay Europe wad isugu jiray boqorada marka James Sultan isaga waxa way dad boqortooyo badan baa xoogaas ka soo waarayso leeysa adig baa u qalmo xilka adiga hogaamin kara waana nin wuxuu ahaa u janjeera dhankan reer galbeedka waagaasi markaas iyaga u arkayeen qofka ay la xaabtami karaan laakiin Bayezid bin Maxamed isaga marnaba kama uusan ogolaan in nimankaasi walaalkiisa ay doorsadaan ay ka dhacayaan fikirka iyaga ay rabaan haddii markaas ninkaasi uu ku fariisan lahay waxa dowladihii Yurub ka boqortooyada Yurub u suurtagal lahayd inay si fudud ku qabsadaan siyaasad ahaan dowladda Cuthmaaniyiinta marka James Sultan waxa dhacday Bursa la wareegay magaalo kale la wareegay intaas waa loo kaadinayay kadib waxa la muhraan noqotay in haddana maaragtay magaalada la yiraahdo Ankara ay isku farsaaray Ankara ay ku soo duulay waagaasi ay dowladda Cuthmaaniyiinta maamulaysa Ankara markuu ku soo duulay marka
waxaa weerarkii si toos usoo galay walaalkiis ka weynaaye la oran jiray Bayazid bin Maxamed uu kula dagaalamay uu walaalkiisi intaas waa sanad badan ula soo waday markuu dhageysan waayo uu yiraahday ana horkacay dagaalkii marka Ankara uu kula galay walaalkiisa Jem waa looga guuleystay kadib waxaa dad ku qasabtay inuu cararo dhankan Yurub wadamada boqortooyada Yurub ka dhisnay halkaas oo inta badan marka dhaqaale uu ku soo aruursaday ciidan badan looga soo aruuriyay oo uu ii sheeg sidoo ula dagaalamay dowladda Cuthmaaniyiinta laakiin waxa halkaas marka ka bilowday waxay ahayd siyaasad xumadii isaga iyo ficilka gurracan uu ku hayay walaalkiisa ka weyn iyo dowladda Cuthmaaniyiinta iyo ummadda Islaamka kadib Jem marka ciidamo badan waa la soo dhisay dhaqaale fiican baa la soo siiyay isagoo habaysan baa haddana la soo diray haddana dagaalku walaalkiisa la galay dagaalku looga guuleystay markuu looga guuleystay waxay ku qasabnaatay marka inuu haddana u guuro ama u cararo dhankan boqortooyada la oran jiray mamluukiyiinta oo ka dhisnay wadamada Masar iyo Suuriya iyo Ciraaq wadamadaas marka waxay markii dowladda Cuthmaaniyiinta la aasaasay waxaa jirta muddo markaas ay xogaa habsaan ay gashay muddadaas ay habsaanka dowladda Cuthmaaniyiinta gashay oo khilaafada hareeyay ay dowladdan kale ka hoos dhalatay oo ay hogaaminaysay maaragtay ii sheeg wadamada saddexdan aan soo sheegay dowladdaas waxa la dhihi jiray hadduu Ilaahay ku yahay magaceeda mamluukiyiinta marka markuu halkaas u cararay Bayazid bin Maxamed wuxuu u diray fariinta boqortooyada mamluukiyiinta uu ku leeyahay walaalka hada ii soo celiyo waxa weeye dowladahan u tacaamulno ii soo celiyo ana maarta la wareegay marka mamluukiyiinta inta badan ba ayaga maadaama uu arkay Cuthmaaniyiinta inay carqalad ku tahay siyaasadooda inta badanna ay qabsatay wadamo badan oo islaamka ah ilaa ay wadamo oo gaalaha naftirkooda waxay dadku ku qasabtay ama ay ayaga naftirkooda arkayeen in Jem uu isticmaalaan walaalkiisa ay ka hor keenaan yiraahdaan adiga amiir adiga u qalmo xilkan ee la dagaalan walaalka haddana markii uu soo baxay ninkii la yiraahdo James Sultan wuxuu ka yimaaday dhankaasi Masar isagoo haddana hubeysan dhaqaale wata haddana waa yimaaday haddana waa laga guuleystay kadib waxaa danta ku qasabta marka inuu toos intuu uga cararo Yurub uu deegaan noqdo waliba dhankan Talyaaniga marka ninkii raahibka ah ee hogaaminayay waagaasi Catalonia Talyaaniga iyo diinka dadka Masiixiga gaalada waxay markaas isaga uu ku amray ama uu ku talinaya xukunka waagaas ka jira dowladahooda in ninkan James la baxnaan Sultan la baxnaaniyo oo la gaarsiiyo nidaam uu ku qabsan karo walaalkiis ka weyn oo uga wareeg yani kaga wareegi karo xilka marka James Sultan isaga wali waa uu ka sii wada fikirkiisa ah inuu la dagaalamo walaalkiis inuu ka hortago dowladda Cuthmaaniyiinta inuu iyaga maaragtay khilaaf dhex abuuro kadib marka waxaa toos u bilowday marka iska hor imaantanka iyo diidmada ay isku hayaan markaasi dowladda Cuthmaaniyiinta oo rabta ninkan maadaama uu ka mid yahay usra ama dhaxaltooyada Cuthmaaniyiinta ee qasab ku tahay dowladda Cuthmaaniyiinta loo soo celiyo mamluukiyiinta naftirkooda iyaga ay leeyihiin maya annaga ninkan amiiran u aragnaa nin amiira si dimuqraadiyada noogu yimaada dib uma celinayn marka dagaalka marka khilaafkaas hareeyay ee caa'ilada Cuthmaaniyiinta ka dhex jirta waagaasi ee amiirada dhexdooda ka dhex jirta isku haysteen ayaa waxay saameyn ku yeelatay marka horumarkii ay gaarsiinayeen iyo ay ku horumarinayeen dhul badan ku qabsanayeen dowladda Cuthmaaniyiinta kadib boqorkii la oran jiray marka Bayazid bin Maxamed waxay qasab ku noqotay inuu duulaan toos ah uu la galo nimankii ka dhisnaa Catalonia waagaasi Roma iyo yani Talyaaniga si guud u haystay Yurub ka dhisnay kana soo horjeeday dowladda Cuthmaaniyiinta ay ku dhahayeen inaga ninkan James Sultan waa nin kamid ah Cuthmaaniyiinta boqortooyada hogaamin kara sidaas awgeed maadaama anaga ixtiraamayno dhaxaltooyada daman iyaga waxay ka tahay qas iyo fawdo iyo dhibaato ay ku kicinayaan oo dadka taabacsan James Sultan isaga leeyihiin adiga amiir adiga kana dadka ay iska horkeenayaan shucuubta kala taabacsan labadan laakiin dabcan ninkan James Sultan mar walba uu khilaaf u sameeyay dagaal uu sii galo shucuub badan buu ku weynayay taageero badan marka ninka la yiraahdo James Sultan waxa qasab noqotay marka ama ay xaaladdu ku kaliftay inuu hoos yimaado maamulka iyo ku hoos noolaado nimanka Europeanka ama Catalonia gaalada waagaasi ay sheeg ay kula dagaalamayeen ama ay awood ugu lahaayeen inay kula dagaalamaan dowladda Cuthmaaniyiinta marka James isaga wuxuu noqday maxkuum ama qof maaragtay la haysto oo hadda meeshii la rabo la geyn karo laga soo celin karo marka waagaasi amiirkii boqortooyada Roma hogaaminayay ayaa wuxuu ka dalbaday Catalonia in lagu soo wareejiyo ninkan la yiraahdo James si uu markaasi ula tacaamulo dowladda Cuthmaaniyiinta u yiraahdo aniga ninkan boqorka idin soo celinay idinkana waa inaad ka baxdaan meelaha aad ka haysataan waagaasi markaasi jasiiradaha ku yaala dalka Talyaaniga kadib Catalonia wuxuu ku soo wareejiyay ninka la yiraahdo marka James Sultan wuxuu ku wareejiyay boqorkii wargaas ka imperatorka ama sultaankii hogaaminayay Roma
markuu lagu wareejiyey ninkii Rome hogaaminayay isaga toos markuu wuxuu fariin u soo diray uu leeyahay ninkii Maxamed bin Bayazid uu ku leeyahay walaalka aniga baa gacanta ku haya anigu maxkum ii yahay waa kugu soo wareejinaya laakiin hal shardi baa wataa marka waagaas dabcan gaalada si kasta ay sameeyeen iyo gardaamo badan ay wadeen ay kula dagaalamayaan dowladda Cuthmaaniyiinta ay ka faa'iideysanayeen kadib waxaa dhacda marka amiirkii la yiraahdo ama suldaanka hogaaminaya dowladda Cuthmaaniyiinta Maxamed bin Bayazid isaga marnaba marka muusan ogolaanaynin in walaalkiisa uu ku duleysnaado wadamadaas ama qaaradaas Yurub ee uu ka hoosnaado oo waxay rabaan u sameeyaan kadib marka waa loo wacay amiirka hogaaminayay Roma oo boqortooyada Roma waxaa la yiri maxaad rabtaa marka waayo oo aan ku sameeynaa maadaama markaas dowladda Cuthmaaniyiinta ee dowlad laga cabsanayo nimankan waliba Roomiyiinta ay ka cabsanayaan ay isleeyihiin ama ay ka qabsadaan gobollo badan dabcan waxaa kaloo jirta boqortooyo ka dhisneed gobolka la yiraahdo Napoli marka Napoliyiinta laftigooda iyaga xataa heshiiska inay ka faa'iideystaan oo ay Roma la midoobaan oo ay dhahan annaga waa inaan maaragtay naftakeena heshiiskan wax ka galnaa ayay jirtay kadib kulan baa dhacay kulankii fariintii ay soo qoran waxay yiraahdeen in koo horta dowladda Cuthmaaniyiinta askartooda ay ka baxdo gobollada ay naga haystaan waxa weeye ii sheeg inaysan marnaba duulina nagu soo qaadan laakiin wax walba ay rabaan ha ahaado ganacsi ha ahaado maaragtay isu socodka bulshada wax walba inaan ittifaaq la sameeyno sida Cuthmaaniyiinta ay rabto ayaan u sameeynaa laakiin dhulkan iyo isku soo duulay marka ninka leeyahay Bayazid bin Maxamed waxay ku qasbanaa waxay ama uu ku qancay fikirka ah in maslaxad lagu wada noolaado oo ay maaragtay ii sheeg wada noolaasho iyo ganacsi ay dhexmarto dowladahan hadda iska soo horjeedaan kadib heshiiska waa dhacay waa askartii Cuthmaaniyiinta waxaa la yidhi iyagu hubkoodii iyo qasnadoodii iyo qaniimooyinka wata ayay dib u soo burteen ilaa marka askartaas waxaa lagu qiyaasaa 8,000 kadib nimanka marka Napoli boqortooyada Napoli ka dhisnayd iyo tii Roma ka dhisnaydba iyaga heshiiskan faa'iido weyn baa ugu jirta sababtoo ah awood ay kaga hortagaan dowladda Cuthmaaniyiinta ma aysan lahayn inkastoo iyaga marka ittifaaq iyo midnimo ay sameynayeen kadib marka waxa weeye ii sheeg markii loo soo celiyay James Sultan isaga boqorkii la oran jiray walaalkiis ka weyn Bayazid bin Maxamed wuxuu ku noolaa intii cimrigiisa ka dhintay markaasi magaalada Edirne kadib waxa weeye markuu ii sheeg uu iska duqoobay ama adiga u dhacay da'diisa sida taariikhda ku xusan 50 ilaa 60 ayuu ku geeriyooday dhul kamid ah yani tuulo kamid ah ku taala tuulooyinkii markaas hoos imaanay dowladda Cuthmaaniyiinta marka gobollo badan furanaysay iyo duulaan badan ay qaadaysay sameyn lahayd ba ay carqalad ku noqotay khilaafka dhexdooda ka qalbisan ayaa waxaa dhacday markii ninkii James uu dhintay amiirka la yiraahdo James uu soo qaaday kadib lagu duugay magaalada la yiraahdo wuxuu ku duugan yahay sida taariikhda ku xusan Bursa Istanbul aan dhahay kadib marka Bayazid bin Maxamed wuxuu sameeyay inuu marka toos ula tacaamulo haddii ay qaataan wanaag hadday dagaal rabaan la dagaalamo dowladihii ka soo jeeday dowladda Cuthmaaniyiinta laakiin waxaa mushkilad soo noqotay nimanka la yiraahdo mamluukiyiinta waagaas waxaa jirta carab badawiyiin oo la dagaalamay ama wadada u gala muslimiinta xajka aaday ee ka tagay dalkan dhulka Cuthmaaniyiinta ee aaday Sacuudiga waagaas markaas Makki Madiina u socday in u galaan wadooyinka ay markaas kula dagaalamaan ay ka furtaan waa sida Maryaanta lagu yaqaan ama isbaarada ay Soomaalidu u taqaano laga dhaco waxay wataan marka xujeedii sidaas markii carqaladii ay ku noqotay ay xajkii ka aadi waayeen oo iyaga mar walba la dhacayo oo maaragtay xoolihii laga furanayo amiirkii la oran jiray marka Maxamed bin Bayazid wuxuu toos fariin ugu diray oo ku leeyahay qoladan mamluukiyiinta ee hogaaminaya waagaas ka talinaya magaalada madaxdan ee Qaahira ee dalka Masar in uu yiraahdo dadkan badawiyiinta dhacaya masaakiinta ama xujayda u socda xajka waa inay ka hor qaadaan marka nimanka mamluukiyiinta ay wax badanba kama lahayn waa ku qanacsanayeen in dhibaato la gaarsiiyo ama lala dagaalamo ama shucuubta ee Cuthmaaniyiintaba la iska horkeeno shacabkii dowladda kadib marka waxaa qasab noqotay waxay ahayd in dagaal uu dhex maro nimanka la yiraahdo mamluukiyiinta iyo haddii la gooriyo Cuthmaaniyiinta dagaalkaas markuu wuxuu bilowday 1485 wuxuuna socday muddo 6 sano marka nimankan Masar ka talinaya ee Ciraaq iyo Suuriya isku haysta iyo Cuthmaaniyiinta dhinaca dagaalkaasi aad baa la isugu baabaahay oo ii sheeg isku horimaad aad qasaaro badan oo u yeeshay marka dabcan nimanka mamluukiyiinta taariikhda sida ku xusan waxa weeye waa niman markaas u janjeeray fikirka reer galbeedka iyaga taabacsanay iyagana maaragtay ku taag waxay rabaan u sameeyay waa sida hadda marka la yiraahdo dabadhilifka kale marka ninka la yiraahdo Bayazid bin Maxamed wuxuu ahaa ninkaas yani Bayazidka labaad
inta badanba 30 sano wuxuu hogaaminayay dowladda Cuthmaaniyiinta 30 sano 30 sano dagaalkiisa aad u yara maadaama dhinaca weerarkiisa caqabad uu kaga noqday marka dhinacyada kale khilaaf uu kaga yimaaday kadib waxa weeye ii sheeg dagaalkii uu socday 6 sano ee kula dagaalamay nimanka mamluukiyiinta waa kaga guuleystay oo gobollo badan buu ka furtay ilaa iyo Suuriya qaybta waa sii gudbay Ciraaq uu ka sii gudbay ilaa iyo Masar buu afka sii saaray kadib ninka la yiraahdo marka waxa weeye Bayazid bin Maxamed wuxuu ku soo noqday marka waxay ahayd inuu haddana uu nidaamkooda dejiyo maadaama gobollada qaar ay kala jabeen oo qaybna ay raaceen James Sultan qaybna isagana raaceen inuu ku soo noqdo haddana amiiradii uu bedelo nidaam uu ku sameeyo dowladda Cuthmaaniyiintu yiraahdo midnimadeeda ka shaqeeyo marka processka markuu diyaariyay inta uu sano uu hayay 30 sano ee xilka uu hayay ninka la yiraahdo boqorkii la oran jiray Bayazid bin Maxamed waxa weeye kaliya waxa taariikhdu ay sheegtaa inuu 5 duulaan bes u qaado 5 duulaanna markaas uu kula dagaalamayo waxa weeye ii sheeg nimanka la yiraahdo kii u dambeeyay kula galay mamluukiyiinta kadib waxaa dhacda marka in dagaalkii uu socday mamluukiyiinta meesha laga saaray ninka la yiraahdo markaas Bayazid bin Maxamed waxaa la gaaray markaasi xilli uu gabagaba cimrigiisa oo da'diisa aad u sii taqoobay markuu jiray 64 sano oo xilkiisii hogaaminayay dowladda Cuthmaaniyiinta oo gobollo badan markaasi dabcan heshiisana waa galay gobollada qaarna waa furtay laakiin isaga wuxuu ku dadaalay waxay ahayd khilaafaadkii soo kala dhex galay isaga iyo dhaxal sugayaashii kala dowladda Cuthmaaniyiinta kadib marka sanadku markuu ahay 1510 iyo adiga 1 ilaa 12 waxaa markaasi soo baxay dabcan amiirkii isaga kaga dambeeyay dowladda Cuthmaaniyiinta Yawuz Sultan Selim oo la yiraahdo markuu ahay 1512 ayuu maaragtay ii sheeg afgambi ku sameeyay xilkii waa kala wareegay wuxuuna aabiis ku qasbay inuu maaragtay ka dheeraado magaalo madaxda ayuu maaragtay loo hogaaminay dowladda Cuthmaaniyiinta waxa weeye tuulaba marka odayga iska aaday nin boqorkii la oran jiray Bayazid bin Maxamed ama Bayazid labaad kadib markuu marxaladan uu soo maray dhinaca weerarkiisu kaga stress kaga furay kaga duulaan kaga sameeyay dhinaca wiilkiisii oo asiga maaragtay uu dhalayba uu afgambi ku sameeyay xilkii haddana si xoog leh uga qaaday odayga markuu xamil way amiirkii marxaladan iyo xaaladan marka taariikhdu waxay sheegtaa in amiirkii la yiraahdo Bayazid bin Maxamed uu meel isaga dhintay tuulaa isagoo murugaysan oo maaragtay stress ku furan yahay murugda iyo kurbada uu ka qaaday waxyaabaha ku dhacay xaaladaas oo xamil waayay ayuu u geeriyooday sanadku markuu ahaa 1512 kadib marka dabcan maxamed sidaan soo sheegnay shalay aabiis oo ahaa Maxamed al-Faatix xukunka markuu la wareegay dowladda Cuthmaaniyiinta levelka ku jirtay level ka weyn oo ka awood badan bay gaartay haddana waxaa xoogaa miisaaniyadii awoodda hoos u sii dejiyay khilaafkii iyo isdhexgalkii ama ay ka kala yimaadeen isku haysteen nimankii kala hogaaminayay dowladda Cuthmaaniyiinta ama boqortooyada dhaxal sugayaasha kadib waxa weeye waxaa soo baxay marka ninkan Selim ayaa xukunka la wareegi doona oo hadli doona insha Allah isaga barito heerka uu sii gaarsiiyay dowladda Cuthmaaniyiinta iyo meelaha badan uu qabsaday iyo waxyaabaha lagu xasuusto marka maanta insha Allah tacaala waxaan halkan ku soo gabagabeynaa waxay tahay xalqadeennii 9aad aan uga hadlaynay boqorkii 9aad ee dowladda Cuthmaaniyiinta ee la yiraahdo Bayazid labaad ama Maxamed bin Bayazid oo ku dhintay da'diisa 64 jir 30 sano ka midana soo hogaaminayay dowladda Cuthmaaniyiinta oo inta badan ba lagu xuso inuu taariikh badan ka tagay dabcan caqabado badan ay isaga xilligii uu hogaaminayay uu la kulmay marka insha Allah maanta waxaan ku soo gabagabeynaa waxay tahay xalqadeennii 9aad oo aan uga hadlaynay boqorka 9aad insha Allah tacaala berrito waxaynu xigi doonaa xalqada 10aad iyo halkiidaan kasii wadi doono insha Allah marka waxaan idin leeyahay afur wanaagsan salaada iyo soonka cibaadaadka Allah naga aqbalo insha Allah tacaala dambigeena dibwaalkeena la dhaafo diyaar lidmo waxaan isku faraynaa waxay tahay wanaagga iyo khayrka insha Allah tacaala wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.